Bismillahirrahmanirrahim. Ugu horeyn halkan maanta waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo kaga hadlayno marxaladda dalku ku sugan yahay iyo siyaasadiisa iyo halka loo wado iyo mustaqbalkiisa nooca uu noqonayo nooca uu yahay. Ugu horeyn halkan waxaan hambalyo uga dirayaa ciidamada ka soo goostay maleeshiyadkii Hargeysa ee maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Ceelbo ee degmada Baran oo ah ciidankii ugu dambeeyay ee ka soo digarigta maleeshiyadka Hargeysa. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya ciidamada iyo intii ka shaqeysay intii hawsha qabatay aad baan ugu hambalyeynaya. qodobka labaad aan u gudbayaa waxa ay tahay marxaladda maanta dalku marayo siyaasiyan iyo halka loo wado anagoo xaq u leh maadaama aan xildhibaanadii Puntland inaanu ka hadalno xaaladda ay dalku ku jiro. run ahaantii aad waxaan uga walaacsanahay mustaqbalka Puntland meesha ku socdo oo loo wado halkii loogu talagalay hal aan ahayn, qaabkii loo dhisay qaab aan ahayn, maadaama ay ahayd Puntland hooyadii federaalka aasaastayna maanta inuu dalku noqdo federaal. waxaad moodaa in tubtii loogu talagalay uu ka leexday iyadoo loo gacan galay gacmo shisheeye iyo rag isbahaystay oo siyaasadii Soomaaliyeed ku fashilmay inay maanta hogaankii u qabteen. run ahaantii waxaan aad iyo aad uga soo horjeednaa oo dhaliilaynaa qaabka uu madaxweynuhu u hogaaminayo siyaasadda dalka oo aan ahayn barnaamijkii siyaasadeed oo uu baarlamaanka ka hor akhriyay shacabweynaha reer Puntland oo uu sheegay barnaamijkaas qurux iyo farshaxanimo ay ku dheernayd wax qabadna laga filayay. maanta waxa uu u gacan galay in uu ka leexday wadadii wada aan ahayn. shacabweynaha reer Puntland maanta waxay aad iyo aad ula yaaban yihiin halka loo wado iyo halka loo socdo, maadaama aynu nahay dad jecel in mar qura la helo qarannimadii Soomaaliyeed oo lagu taameeyay 30 sano ugu dambeysay in aan ubadkii yaryara ee xilligii dawladii Soomaaliyeed ay burburtay wixii ka dambeeyay aan la arag wax la yiraahdo dawladnimo. markasta oo loo dhaqaaqo halkii ay ummadan u baahnayd oo ahayd inay mar qura indhahooda ku qabtaan qaran Soomaaliyeed soo laabta waxa jira kuwa dhinac kale ka xagal daacinaya. waxaan la soconnaa waxa Kismaayo ka socda in aanay aqoonsanayn dawladda federaalka. mar haddii aanay dawladda federaalku aqoonsanayn sharci ma aha in marka la yiraahdo wax aan sharci ahayn ayaanu u heelinaynaa oo u tagaynaa. run ahaantii waxaan u arkaa inay tahay xagal daacinayo habkii iyo hanaankii loo waday dawladda federaalka oo aanu ka ahayn hooyo ama maamo. hooyo wax ma kharibto, hooyo waxbay hagaajisaa, hooyo waxbay barbaarisaa, hooyo waxbay toosisaa, hooyo ilmaha waxay ku barbaarisaa akhlaaq fiican iyo wanaag. taasaanay ahayd tii Puntland loo aasaasay inta u socoto. waxaan anigu run ahaantii aad uga walaacsanahay siyaasaddan hadda ay Puntland la jaanqaaday. waxaanu la soconnaa in wixii Puntland kaga xidhnaa federaalka aan la doonin, in horumarkii Puntland ay ka rabtay iyo xaq iyo xuquuqda ay ku lahayd federaalka inaan la raadin laakiinse meelo kale laga durbaantumanayo. taasina waxa ay keenaysaa in la hor istaago shacabkan 20 sanadood oo mana in bulshadii aasaasiga ahayd wax laga qabto, baahiyii aasaasiga ahayd wax laga qabto, infrastructure haday noqon lahayd iyo haday baahiyii aasaasiga noqon lahaydba. taasi waxa ay keentay cilaaqaad xumada oo mar walba madaxweynuhu yimaado oo cilaaqaadkii ula xumaynayo dawladda federaalka. taasina waxay keentay waxyaalo fara badan laga hor istaago. anigoo xildhibaanadeeda kale sharafta la u dhaafay hadalada oo aanan rabin inaan ku wada tunto waxaan ku soo gabagabeynayaa habkan loo socdo iyo habkan wax loo wada ma aha habkii ummadan ama shacabkan ay doonayeen ma aha. shacabka reer Puntland waxa aan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay yihiin dad jecel
soomaalinimada qarannimada dowladnimada taasina waxay cadeynaysaa sidii loogu soo dhaweeyay farmaajo saddexdii goor ee uu yimid dalka iyo labadii goor oo khayr wadanka yimiba sidii quruxda badnayd ee loo soo dhaweeyay waa la soconaa taasi ka turjumi mayso in shacabka Puntland uu necab yahay dowladda federaalka ka turjumi mayso waxa kale oo halkan iyadana aanu ku soo sheegaynaa insha Allah taala mar haday dowladda ka gaabsatay xaq iyo xuquuqdii lagu lahaa federaalka in la raadiyo annaga marka doorkoodii ciyaarayna waxaan isku daynaa insha Allah taala inaan xamar tagno meesha ay sartu ka qoranteen haddaan xildhibaan nahay xildhibaano far badan baan nahay waxaan rabnaa inaan Muqdisho aadno oo aan ogaano halkay sartu ka qorantahay haddii federaalku khaldan yihiinna aanu khaladkooda soo saarno haddii ay saxan yihiin aanu dowladdeeda qabano waayo rasuulku salawaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu unsur akhaaka daaliman oo madluuman u hiilin walaalka hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahayba haddii dowladdeedu gardarantana waanu qabanaynaa haddii federaalku uu gardaran yahayna fartaan ku fiiqana runtana waa u sheegaynaa insha Allah waxaan ku dadaalnaa maalmahan soo socota in aan aadno Muqdisho lana kulano madaxweynaha federaalka xaq wixii dowladda Puntland kaga maqnayna aan u doono dadkii loo igmaday hadii ay majarihii iyo wixii loo igmaday ay ka leexdeen shacabka anaga soo doorteen anagana xaq naga saaran yahay dowladana anaga dooranay anagana rabnay inaanu ku saxno wixii ay ku saxan tahay wixii ay ka khaldan tahay in aanu toosino insha Allah arrinkaana dhaqso ayaanu aadinaa Muqdisho anagoo xildhibaano far badana wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.